Weli waxaa socda casharkeena caafimaadka. Gargaarka gubashada aan weli ku guda jirnaa. Gargaarka gubashada heerka koowaad, heerka labaad. Heerka koowaad hore aan soo qaadan, hadda waxaan gelinayaa heerka labaad. Qodobka koowaad, heerka labaad qodobkiisa koowaad, maqaarka biyo kastay ka daadi biyo oo mari gentamicin or tetracycline ointment. Meeshan wuxuu ku leeyahay qofku marka uu soo gaaro dhaawac, qofka jirkiisa markuu dhaawac soo gaaro, waxaa loo baahan yahay marka uu qofku dab istaago kale ama uu dab gubo kale, meel gubato kale oo ku saamoobo, waxaa loo baahan yahay qofka in loo sameeyo Soomaali gargaar. Qaabka gargaarka looga sameeyo waxay tahay qofkan gubashadu heerar kala duwan ay kala tahay Soomaa. Gubasho waxaa jira qofka oo xanuun yar dareemayo ka bacdi oo caadi noqonaya, iyo gubasho meesha dhan bislaanayso oo meesha dhan waxay noqon ka kac hilibka dhan dhacayo ama maqaarka dhacayo. Hilibka doomar dhac bas waa lugta goysmo, waa lafta inta harto waa la jaraa. Maxaa yeelay laftaas wax lagu daboolo hadhow ma la helayo. Marka laftaas way dhimanay haddii mar ay weyso hilibkii iyo wixii ku daarnaa. Marka xididadana way dhimanayaan, halbowlayaasha way dhimanayaan, wixii dhan hadday ka daataan dab ka daadi eber waa Soomaa. Marka heerkan ugu daran waaye. Mid kalena wuxuu ku egyahay maqaarka, qofka maqaarka ka dhacaya, maqaarkiisa daadanaya. Qofkaas caymasho u leeyahay macnaha waa la dhaqi karaa, waa lala tacaali karaa inkastoo ay muddo qaadayso. Marka heer kala jiro oo qofku markuu dabka saas u taabto kale meesha biyo ay galayaan macnaha. Jirka bini'aadamkana markuu kuleyl arko waxaa ku borgaraamsan oo mis Ilaahay waayo waxaa ku borgaraamsan mar hadduu qabow arko kuleyl inuu isku difaaco jirka kuleyl soo daayo. Mar hadduu kuleyl arkana oo soo daayo qabow. Qabow hadduu soo daayo oo kuleylka hadduu zaid u yahana wuxuu soo daayaa biyo zaid ah. Marka markuu qofka dabka uu soo gaaro kale oo dabka uu taabto kale, waxaa jirta xilli jirka maqaarka ay galayaan biyo. Marka waxaa laga hadlaa biyahaas. Biyahaas markay galaan waxaa lagu dhahay qofka biyaha ka baji ka bacdi meesha dhay. Saas laga wadaa macnaha. Waxaana siyaa lagu dhahay daawooyinka gentamicin iyo ama laga wadaa macnaha or waxaa ama tetracycline ointment daawooyinkaas asi. Okay. Qaybta xigta gubashada heerka saddexaad. Gubashada heerka saddexaad waa gubashada culus ee murqaha qaar ay gubtaan una baahan daryeel caafimaad oo heer sare ah. Hadda waxaa laga hadlaa qof dabkiisa zaid macnaha sheekada maqaar waa ka gudubtay marka waxay u gudubtay
xididada iyo waxay u gudubta soomaan murqaha. Marka dadku qofku muruq uu ka gaaro waxaa loo baahan yahay baxnaano zaa'id ah. Dadka qaar waxaa la geliyaa jaasto, dadka qaar inta la seexiyaa daawooyinka fara badan inta lagu dhayo, faashado badan lagu duuduubo oo zaa'id loola tacaalo. Marka saas waa. Qodobka xiga, gargaarka gubashada heerka. Qodobka xiga wuxuu leeyahay weli waxaan ku jirnaa Soomaa heerka saddexaad. Gargaarka gubashada heerka saddexaad. Lambar kow uu kala qaadaa markuu inta soo gaaro gubashadii uu kala qaadaa. Soo qaado liitar biyo ah iyo qaaddo cusbo ah oo ku dhaq meesha gubatay. Ka dibna mira sulfonamide cream meesha wuxuu ku leeyahay wuxuu ka hadlaa gubashada oo marka murqaha wax soo gaaraan. Qaybtan saddexaad waxay mar kale u soo noqoto waxay tahay markan waxaa laga hadlaa qayb saddexaad qaabka loo daaweeyo. Waxaa lagu dhahay cusbo iyo wax soo qaado meesha cusbadii wax marka la soo qaado meesha waxaa la rabaa in la dhayo ma fahanti iyo wax soo gaaray laga dhayo. Marka la dhayo kabacdi daawadan la siiyo, daawadan kaniiniyaashan la siiyo si qofku u bogsado. Qodobka xiga, u sameey dhaymo wanaagsan. Anaa dhaymo wanaagsan wuxuu ka wadaa qofka dii mar oo meel la geeyo ama qof uu u gargaarayo kolleyba si xun u dhayayo Soomaa, si wanaagsan u dhayaa Soomaa. Marka dhaymo wanaagsan waxaa laga yaabaa waxaa laga wadaa macnaha waxyaalaha oo jeermiska iyo wasaqda meelaha wasaqda ka ilaali macnaha. Maadaama wax meesha oo wax gaarin ee nabarta nabarkaasna uu u nugul yahay oo wixii u difaacaya nabarkaas ee meesha ay ka baxeen oo dabka oo cunay ee meesha ay tahay baylah iska banaanta. Marka meesha waxay u baahan tahay in la ilaaliyo. Waxaa laga ilaaliyaa wasaqda iyo jeermiska. Haddii laga ilaali waayo wasaqda iyo jeermiska waxaa dhacayso meesha inuu caabuq ku dhaco. Caabuqaasna wax walba sababi kara bacteria nooc walba ku dhalan karto. Weliba meeshaas waxay gaari kartaa heer meesha in la jaro ay gaari kartaa heer xun ay gaari kartaa. Marka waxaa loo baahan yahay meesha in la ilaaliyo. Maxaa qof shafaashid lagu duubo marka oo la dhayo. Waxaa la diidaa meesha inay caabuq qaado infection ay qaado oo meesha bahal ku dhasho ayaa la diidaa. Marka saas qodobka saddexaad, sii cabitaan badan khaasatan milanka Shifo ORS. Milankan aniga horta waa arkay waan dhadhamiyey waa dhanaan uu leeyahay macnaha. Waxaan arkay isagoo bac ku sijilaysan hadda ka hor carabkaan saaray marka qaabka u dhamaan oo fiirna xogaa dhanaan ku jiro. Qofkan waxaa loogu talagalay in xanuunka loogu daaweeyo macnaha. Okay ORS kan waxay ka mid tahay
waxyaalaha dabka lagu daaweeyo. Caabuqa marka waxaan ka hadlaa meesha markay caabuq qaado oo infectionkii wixii ay ku dhacaan laga ilaaliyahay markay ku dhacaan oo ka hadlaa. Caabuqu waa nabar daaha oo aan la daryeelin ma arkaysaa, isla markaasna jeermis galay. Sidoo kale, caabuqa cusub calaamadihiisa waxaa ka mid ah intaan qodobada aan u guda galin waxaan ka hadlayaa Soomaali caabuqa. Caabuqa qofkan waa la ilaali waayey, waa laga taxadari waayey, bakteeriyada wasakhda iyo jeermiska waa laga ilaali waayey. Marka bakteeriya iyo jeermis meesha galeen lacala meesha jeermis haba galaba waa la xifdi waayey, meesha bahalaa ku dhashaba infection. Caabuq noocyadiisa kala duwan inta badan bahalka meesha caabuqa waxaa sababa bahal. Bahalkaasna wuxuu ka faa'iideystaa nabarkaas oo baylahda ah. Tusaale, hadda duqsigoo kale qofka markuu nabarkiisa meesha oo maqaarka uu ka fiiqan yahay oo kale ama meesha oo dhaawac soo gaaro oo kale duqsiga sagaashanka ugu wareegaa Soomaa. Teeda kale duqsiga wuxuu wataa bakteeriya wataa meesha markuu ka dhargo bakteeriya ku dhalaa, saxaradiisa dhan waa bakteeriya, isaga dhan waa bakteeriya Soomaa. Marka isagoo bakteeriya wuxuu kusii dhalaa meesha bakteeriya. Waa tusaale marka waxaa waaye bakteeriyada la arki karo waa duqsiga Soomaa oo garbaha leh oo duurayso meel walba ku degayso. Marka waxaa jira mid ilma aragta ah oo la arkay meeshaas iyadoo badani ku gale ama dabeel ahaan hawa ahaan ha u imaado ama dhulka ha kasoo gaarto soo gaartaba ama faraha iyadoo la socoto, macnaha faraha badanaa hal dhaq waxaa la dhahaa macnaha jeermis la socoto Soomaa. Jeermiskaas inuu meesha oo sababta loo dhaqaayo inuu meesha oo uu waxyeeleeyaa la diidaa Soomaa. Marka faraha bakteeriya saaran haddaad ku taabatid waa ilma aragtada iyo midka dhibaato u geysan kartaa. Marka saas waa qodobada aan guda galaynaa. Qodobkaad wuxuu ku leeyahay xanuun badan, qofka zaid ayuu xanuunsanaya. Qodobka labaad, nabarka hareerihiisa oo gaduuta. Qofku wuxuu dareemaa xanuun fara badan, nabarka hareerihiisana gaduud ay noqonayaan. Markay meesha bakteeriyada ay qaado waa macnaha dhiigga isku soo xiraya labada dhinacaha nabarka. Teeda kale mar walba dhiigga wuxuu u diyaarsan yahay inuu difaaco bakteeriya la dagaallamo. Wax kaliya mar walba bakteeriya la dagaallamo waa difaaca jirka. Difaaca jirkana waxay ku dhex nool yihiin ama ay ku dhex jiraan dhiigga. Qof walba mar walba dhaawac soo gaaro ama meel ay wax ka soo gaaraan waxaa ka imaan Soomaa dhiig. Dhiiggaas waxaa la socda difaac. Waxyaalahaas oo markaas oo meesha soo gaaray isla markaas waxay isku dayayaan inay haddii bakteeriya yihiin ay baabi'iyaan. Haddii meesha ay baylaha noqoto xuubka oo ka dhacana xuub ay saaraan isla markii
meeshuu i guduuday dhiiggas isla markii waxaa jiraa isla markii wuxuu noqaa qolof. Qoloftaasna waxay difaacay wax walba oo kusoo degi lahay ama bakteeriya duulaysa ha ahaato ama wax kaloo duula ha ahaado, way ka difaacaysaa macnaha. Qodobka saddexaad, nambarka dhiigga ka yimaado nabarka dhiigga ka yimaada ama malaxda. Dhiigga waaba la yaqaanaa, waaba difaaca jirka uu ka mid yahay soo ma. Laakiin meesha markay malax ay ka timaado waxaa ka cad meesha inay caabuq ay qaado. Malaxdaasna waxaa sababa waxaa dagaalamaya difaaca dhiig ku dhex jiray iyo waxaa dagaalamaya bakteeriyada meesha fuusha. Malaxdaas waxaa waaye bakteeriyada iyo dhiigga markay dagaalamaan, bakteeriyada oo la dilo macnaha bakteeriya laga adkaado meesha waxay noqonaysaa malaxdaas bakteeriya oo dhimato. Marka malaxda waxaa waaye bakteeriyadii oo dhimatay oo qaab qashir saar ahaan loo soo bixiyay macnaha. Marka nabarkaas badanaa malaxdaas waxay imaadaa xuubka gadaashiisa ama si caadi u soo baxdaa soo bilaa xuub. Marka waxaa waaye qaab qashin saar ahaan ayuu dhiig iskaga soo saaraa. Markuu bakteeriyada ka adkaado iyada dhan soo qaado oo qaab qashin saar ahaan banaanka soo saara. Marka waxaa la rabaa bakteeriya maashaas oo kale inaad bajisid meeshana aad dhahid soo ma fahmi. Marka meeshaan ku ekay doonaa casharradeen dambe la socda insha Allah. Teeda kale casharrada soo badin doona insha Allah.